waxaa heerkii ugu sarreeyay gaaray xaaladaha adag ee ka jira Soomaaliya, khaasatan abaarta iyo colaadaha. Sheekadeena maanta waxaanu ku dul istaagi doonaa mid ka mid ah qoysaskii ka soo barakacay deegaanada ku teedsan nawaaxiga Muqdisho oo ay u soo barakaceen dadkii halkaas ku noolaa oo u badan haween iyo caruur oo ay laf dhabar u yihiin dhibanana ay ku yihiin iyo dulmane sidoo kale haweenka Soomaaliyeed oo aanan haysanin markaas rag garab istaaga ama caawinaad buuxda u muujinaya. Tan waa mid ka mid ah xaaladaha ka jira kaamamka. Waxaan la kulannay hooyo Safiyo oo aan maanta sheekadeeda dul istaagi doono. Aan ka imaanay degmada Kuntuwaarey waxa ka soo qaxnay xawaalo iyo biyo la'aan iyo col yaa ku soo qaxnay meeshan isku joogna barakaade waxa ku noolaa buush yar oo ku noolaa gaajo oo waxa haystay ilmaha aduutana wax maana ma wax soo hada man waa soo waay muslim ilaahay wax nasiinada oo ilmaheena abad dhan gaajo ku dareen gaajo hoy la'aan caafimaad daro iyo sidoo kale inaysan shaqaysan karin intaasina ay u sii dheer tahay hooyo uur leh oo haysata cunug 11 bilood jira iyo ilmo kaleento aanan waxba dhaamin. Ma haasina wixii ilaahay soo soo waasnaa waan iska seexsanaa. ما فهموا كساوي وإحنا أنا بقالة في معنا. waxa ku muuqanaya cooshad yar oo ay ku nool yihiin hooy ahaan. Waxaan sidoo kale la soo kulannay ama soo aragnay halkii ay cuntada ku karsanayeen oo ay noo sheegtay inaan wax daba lagu shiidan muddo 4 maalin ah. Ayagoo sheegay in 8 maalin ay joogeen gudaha. 4 maalin oo kamid ah dab ma aysan shidan. Dadka ayaana wax siiya. Waxba uma haya ay leedahay. Caruurtuna waxa ay la ooynayaan sidoo kale gaajo. Adiga hadda daawanaya sheekadan haweenku waa walaashaada, waa xaaskaaga gacalo ama waa hooyada macaan. Waana laf dhabarta kaliya ee bulsho kasta. Aan u naxariisano qaasatan haweenka Soomaaliyeed.